الله سبحان الله. waxuu xusuusiyay bari baan anagoo jamaa khuruuj ku baxday meesha leeyahay Minnesota Saciid Yaxya Allahu naxariiste raxmatullahi alayhi ayaa iga yar waxa dhayna soo booqo Soomaaliya halka waa badan yihiin oo barigii dhowri المهم ماشي Minnesota aan tagay marka masaajidkii markii hawshii kalimadii waxay dhamaatay baanan yimid waa isgaranay inaan reer xamar islahayn kaas balbalaar meesha leeyahay xamar ciyaalka xaafadda mutaqan ciyaalka xaafadda aan islahayn marka wuxuu yiri sheekhu dhibaato ay haysata horta jamaacadu waa kuwa yiraahdo khuruujka dadka nala baxo wuxuu yiri waa ku qasbanahay balahan anaaba khuruuj iska ahaayo guriga waa liga soo yiri marka alxamdulillah daaban meelan seexdo aan idin ka helo waaba fiicanta كوده لكن بل waxaan rabaa buu yiri meeshaas cid kale oo igu celin kartaa oo adiga aan ahayn mar ilaahay baa ii ka soo diray qofkaas cid ay wadaadadii dhulkan joogay way ka maqli weeyay sheekada waxba ka maqli marka ina keeno bal iraaco telefoon iyo waxaasna wax ma tarayaan waa inaad adigu tagtaa guriga tagtaa adigu sidii baa dhacday alxamdulillah gurigii baan tagnay sidaa uu hadda shaacali sheegay barbaryo iyo ballama aan kala galay iyo inuu ninkan hagaagi doono iyo inuu fiicnaan doono ya ilaahay ba toobada waa aqbala in toobadiisa aad qoosho Allahu latiifun bi'ibadihi marka waa badan yihiin sheekadu taasi kuwaasay ka mid ahayd alxamdulillah ninka ala kulli hal gurigiisa uu ku noqdo insha Allah ilaahu barigaas ay ugu dambeysay gurigiina lama bixin gurigiisa uu iska helay oo dhamaatay الله لطيف بعباد marka shaacali meesha uu leeyahay meeshan ka nimid anaga ma wada aha kulligeen ma isaga sheegay isha Mustafa bir hore ka soo guureeyo isaga yimid iyo kolka dadku runtii dhulka hadalka uu Sheekh Mustafa sheegay dhab ah waa shirkad baabaaday way yartahay saddex markay yihiin laba ayaa fashil fil bayt la yumkin ma waa yartahay ba dad isku daa'imay waa yartahay wali waxa arkaysa dad duqoobay oo isku duqoobay caruur waaweyn isku dhalayo lagu leeyahay meesha waa lagu kala tagay ama waa lagu kala tagay ma wadaadkii waa la eriyay marka Allah naga badbaadiyo sharkaas Allah naga badbaadiyo tawfiiqda Allah na waafajiyo meelaha laga yaabaa in badan oo idin kamid ah aad yaani shinsanaysaan oo rajaynaysaan oo isleedihiin nolol fiican baa idin ka horeysa xaqiiqatan nolol wanaagsan idin kama horeyso تدخل سافر ayaa lagu yeeshay في الأسرة ama dhinaca xagga dumarka ha noqoto ama ciyaalkii baa hadda ka daranba caruurtaadii oodan maamuli karin oo waxa oran karin oo kelimad dhihi karin marka shar badan oo ilaahay naga badbaadiyay weeyo oo ilaahay islaamkeena iyo diinteena nagu siiyay Allah nagu daa'imo insha Allah ta'ala ikhwani waffaqana Allah iyaakum lima yuhibbu wa yarda rinta in gurigu bittaqwa ku hagaagayo wa arin muttafaq alayha taqwada ilaahay baana yani gurigaasi uu ku daa'imi karaa oo xuquuqda iyo fawqaha al-ihsan labadiiba keeni karta qof walba markuu ilaahay ka baqo hatta fi baabi ta'addud zawjatka labadiyo oo meesha ugu mashaakil badan arrintii marka lagu soo noqdo reeraha oo yani dadka muslimiinta ilaahay taqwadu daba dhigay آية التعدد مثلا آياتها أنت بدن دتك كان أرمها ديدان يكون دجان ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم مرة ما يشتران فلا تميلوا كل الميل مقاران جماعة التفسير ذيك الصومالي التفسير كسبع وذا دقيقتين وحي كدجان سيدا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة هالكاس لوجوك سد مرة ما يشتران فلا تميلوا كل الميل مقاران إلهي وحنا في كمال العدالة إننا سورتوبين وهنا صح بشر باطل بني آدم باطل لا يمكن أن تعدل كل العدل لكن فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وحو إلهي دبلغ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا مركي طلاق إمادنا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما آيات دي عام كأهيد شامل كأهيد بإلهي دبلغ ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض
وكان الله غنيا حميدا. marka ikhwaani taqwadu xusulkeedu waa bil jidd wal ijtihaad. iimaanka alxamdulillah ilaahay baa ku siiyey, muslim baa tahay, mudiic baa tahay, musalli baa tahay. kullamaa aad daacada ilaahay ku dadaashid fii daatika naftaada aad ku dadaashid, usradaada aad daacada ilaahay aad ku dadaashid, acmaasha saalixada aad la timaadid, iimaankaa kuu kordhaya. iimaanku hadduu kuu kordhana taqwadii baad helaysaa. taqwo haddaa heshana dee iskaba dhaaf yani usro wanaagsanaatay iyo umuur kuu hagaagtay jannadii aakhira ahayd qayb ka mid ahba ilaahay mucajal kaaga dhigayaaba, noloshaadii adduunkaaba janno kuu noqonaysa. sacaadatu addunyaa baaba ilaahay ku siinayaaba bitaqwa allahi tacaala wa taacatihi. sacaadada iyo liibaanta iyo reeraynta iyo faraxa meel lagama iibsado, dukaamana laguma gado, dowladuhuna ma sameeyaan, cid bixin kartana male ila allah. ilaahayna wuxuu ku xidhay helideeda sabab uu yeelay, alaa wahuwa taqwa, inaad ilaahay ka baqdo oo taqwada badsato oo dikrigiisa badsato. kullamaa qofku uu ka dikri badan yahay oo ka taaco badan yahay oo ilaahay uga dhowaansho badan yahay ayuu ka sacaado iyo liibaan badan yahay. xadiidkan saxiixa ah ee kulli aan wada garanaynayna soo wada maray, nebigu laba nin buu sheegay, labaduba ay seexdeen. kulluna waa bani aadamkao dhan waa seexdaa. wuxuu yidhi idaa naama axadukum yacqidu الshayطaanu calى qaafiyati ra'si axadikum ida huwa naam ثalaaثa cuqad yadribu calى kuli cuqdaة calayka leyl طawiil farqud fain istayqada fadakara allah inxalat cuqdah fain tawadaأa inxalat cuqdah fain صalaa inxalat cuqaduhu kuluha فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. للعجب إخواني حديث كان أئمة كل جود وحي كسو دارين أما يكوشا في باب قيام الليل، في باب صلاة الفجر كومي شيء قيام الليل بلغ هذا يا شيطان كأيا وحكو كنتيا رأسك أما قافية رأس أحدكم مدحيسة saddex guntin oo qaybi oo la arkin, mid walbaba wuxuu ku dabcinayaa oo ku qorayaa calayka leylun tawiilun farqud, habeen dheer baad haysataa iska seexo. waa waxaana markaad soo gadgadoonto ama aad musqusha u kacda ama saacadu kugu qaylaysa ama telefoonka aad isagaa kula hadlayo, waa cuqadkaa weeye, iska sii jiif weli weeye, habeen dheer baad haysataa. marka haddii uu kaco oo uu ilaahay xuso, وأنا سنة إلى إله حسن مركات كعدو لا إله إلا الله ذكر الله هل حبا فرميش عقدك مدبا فرميش قنتنتي مدبا فرميش هدي ويشيستانا ديك هلتين لباد با فرميش هدي صلاة الليل تكدنا ساد حديبا وفرميان محا كرتم يوكدلنيا فأصبح طيب النفس نفتي سمني طيبته وأنا أقسنتها أو نشيطة وحياة الجنة سعادة لبان رأيين فرحة أي ولا سوكع يا قفكاس. وإلا هدو سايلي وايو أو كعي وايو أو طبعي شيطان كو طبعي ولا سيحضو أصبح وحوا بريستا خبيث النفس كسلان. بدي نفتي سؤال خبيث تهي أو كسلانه عاجزة. طيب النفس نشيطا وحاكرنا نهيسا أخلاق دي ونكسنيد وحل وحي فينا أما قويسها النقطة أما معاملة سي زوجة لها النقطة أما عرورتي سي يسوع دق لها النقطة أما أمورتها حتى بناك مركو بحو شغدي سي وسوق ذنيو وهن نطيب النفس نشيطة وفرحانة وهن مشكلة هي سنين لأن سعادتي بقى إلهي قلبي يسكوش بها واللي بنسيها ولو فقير بقى هذا ولو يونا وحبابها يسنن تنكل أنا محاكل أنا ليسين وخبيث النفس وياي ونفتي شو أي حنتاي وحباب دول قادن كرين أو وحباب أهم بوحكر دقاي مركا يوسن وركو نلسي باهنا إن شاء الله مشايخ ذا نور دمي سي باب كان لقاه الله يقويس كدحدي شو أيها جاجان أعماشي نبوة نبي عليه الصلاة والسلام وأسرة الدحلسية أين كود ذلو
oo gurigii reerkii wax kasta waa loo kulmaa cuntadii waqti baa loo kulmaa faajafaajintii kale iyo bahalladii la daawanayay mar baa loo kulmaa haddii la rabo waxyaalaha kale oo dhan waa laysu waqti dikriga ilaahay loo kulmana ha la samaysto oo reerkoo dhan ay isu yimaadaan oo xalaqatu tacliim la sameeyo oo ilaahay la xuso oo qur-aanka la akhristo oo xadiidtii nabiga la akhristo calayhi salaatu wassalaam halkaa maxaa ka dhalanaysa malaa'igtu inay soo degto naxariistu ay soo degto ilaahay uu xuso muddo yar kadib waabaa la arkay waana la jarribay in badan oo reero oo mashaakilkooda la xallin waayey muddo yar kadib xalaqadaas dikriga ilaahay markii ay sameeyeen ilaahay dhabatadii waa ka dulqaaday malaa'ig baa meeshii timid shayaadiintiina meesha way isaga tageen umuurtan umuur haybi weeye waxaana lagu gaarayaa bimujaahadati nafs waana la ogaado wax kasta taasaa ka adag درسي إن دقيشتو تفسير عاوز هو دقيشتو مسجد كتكتيت أما درسي كلا تكون تحت محاضرة سيدنا أدو فردي واكو سهلنتاي لكن قرقة إن الإسلامتي عروتي أنت سصوهر فريستان هذا حديث النبي القرآن كأخرستان وأرن آدو مجاهدة بدن أباهن وأنا أهم أسباب تأقوين يحكوها قاقان وي وأنا سنة النبي صحابتي رضي الله عنهم خير كأن النبي كم مغلان صلى الله عليه وسلم كوريودو لا تجي جيرين خير كاسة وجود بن جيرين أبو سلمة رضي الله عنه حديث النبي كم مغلي والحديث في الصحيح وحو مغلي النبي قوله ما من امرئ مسلم تصيبه مصيبة يكون عضو أو فيسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون إلى ثم دعاء كن دعيستا اللهم أجرني في مصيبتي مصيبة إذا إله وإيجا أجرسي وأخلف لي خيرا منها وحكى خير بضن إله يقول بدل أحد سايا لم يجر إلا إلهي وصيا حديث كيبو قريسي لتغي أم سلمة وزوجتي ساهيد باك مقشي مصيبة يسقي ريركي بيبا كنت ميدو يسقي باردنتي أم سلمة أسكشي كينيس رضي الله عنها وحيتي لمركي ودنتي أبو سلمة دعادي بان كنت دعايستي لكن وحاني سريبا يتري دعادا وأخلف لي خيرا سقمت إيغا خير بدن إله ويسي وهي سورة قلي ويدي كي أبو سلمة ياك خير بدن كربا أخلاق ديسي وناك سنائية معاملة ديسي طيب كأهيدي يا إساو كلابا نقون كرا دعادي واكو دعايستي عدة دي مركي دماتي بيتيري ولي باللحظة دي أرنتنا أي دعدي أي تقييدي سوي قرتي وحي تيري أنا وأو مقار محل أورنجري حركة دي مقديني سماين أف سومالي وابس كسي اللي لو بينابين أيو نبيو إيقاسو إذن قاتي يرد وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دابا بركن بانو دغه بيتي حشوها ليفن وكفريستي فخطبني الى نفسي صلى الله عليه وسلم نفتي سوب ما ركتي خذوا يعني وانا مقرشدو markaasaan ku yiri ya rasuul allah qof horta muslimada oo mu'minada ku diidi kartaa ma jirto oo taasi arintaasi ima basuubanaba laakiin saddex ciibood baan leeyahay أكيد شيخ هذا له قف والبابا وحش شيء ما لكن يضوي شيء واحد تري صدق عبود من ليه هو عيبت كوباد وحيد تري هنو وين هذا يقفين بناهي تلا بعدنا وحيد تري عرور من ليه هيو عرورته ده عيب ما لكن وثقل وعليش وأنا كوع عليشيو مجهدي أرنت صدحاتنا وأرن قلبي قاهو تكو هذا مادة محسوسة هي لكن كان وأرن قلبي أوه waxaan ahay bay tiri qof qiiro badan qiira masayr badan baan ahay adiguna haween badan baad leedahay hadda adiga isu ka mujaamilay waxaan ka baqayaa ilaahay qalbigayga intuu wax ka daalacdo inuu igu cadaabo marka saddexda caybood baan leeyahay ee si kale kuma badiideen waana ku diiday kuma dhihi kara bay leedahay rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallam arintii waa u sahlo wuxuu yiri daada aad sheegatay amba waa iqaysaa amba da baan ahay falaqad asaabani alladhi asaabaki عيالك أنا سوماها وعيالك وعيالك عيالي أرنت صدق هذا ومصيرك سوماها فأنا أسأل الله حلك أكتيس وابس كسهلا دايبا الحل عنده سهل أنا يقين تايبر نقول نقطة وسهل بلا دربي هذا ما ضحكوا قراعنا أما الغيرة سوماها فأنا أسأل الله إلهي يبان بري يا ويدي سنة يايو فيذهبها عنك وكاك حين إلهي باكاك حين غير هذا إلهي باكاك حين
أم سلمة وحيتري فأبدلني الله إلهي وحي بدلي خيرا من أبي سلمة وكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أركا أمهات المؤمنين سداس يكون نغطي، بل من أكثر أمهات المؤمنين حديثا بعد أمنا عائشة نغطي رضي الله عنها وأرضاها، وحين تاكوها الشيء وأساسه تكوين حلقة التعليم في البيت. قرية إن آن لغدقين من اللغو عنتيو اللغو عبو وقضاء الحوائج والشهوات كلية واللغو إيو فرفشئية كلام فارغ وذكر إلهي لغا خالي لباتو دن هالكاسي كتم هذا حديث أرنتي هورين شيغي قيام الليل ككساب سنيد ما أركتي أن كاففتين إلى هشيس هكسي وهرمروا لسوسي شيغو حلقة تعليم كقرية لغا سميني أمورها سائلة هي تقوضا نغسينيا قريقنا وكوهاقاقيا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اجعلنا من عباد الله سبحانه. تفضل.